saaga waxaan joognay maxkamadda gobolka waxa ahayd maalintii u dambeysay ee lagu dhawaaqayo xukunka ninka la yiraahdo saxafiga Coldoon oo aan ka soo qayb galay aniga sidii la ii xidhay ee aad ii weydeen ee aanan dib ii arag oo saaka media iga horeysa waxaan qabaa laba xukun ayaa ninkaasi la isku hoosgeliyay mid ay dawladdu gaar u wadatay oo iyadu doonaysay iyo mid iskuul lagu magacaabay iskuulkaasina ay diideen saan xogta ku hayo inaanay ninkaa wax dacwado haysan waxaa lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood waxaan u arkaa xadhigaasi cadaalad darro xaq darro in Coldoon la xidho iyo in Cabdiraxmaan Abees la sii daayo cadaaladdu kuma jirtay ee dalka wuxuu u baahan yahay cadaalad baahsan oo cid walbaaba in hesheetay haddii ay isleedihiin Cabdiraxmaanna waa la sii daayey Coldoonna waa la xidhay anigani waa la sii daystay layma sii daynin waxaa la sii daystay in boorama laygu dilo oo ujeeddo gaar ah oo siyaasiya laga sameeyo taasi waa taa Coldoonna insha Allah waxaan u baryaynaa in cadaaladdiisa uu soo celiyo looyaradiisuna ay u doodaan raacsaanna u helo taasi waa ta kale aan ku darayaa waxa weeyaan arrinka ceel afweyn ka dhacay ee dadka walaalaha ah ee isdilay aanu doonayno inaan barodiiq ugu dirno iyagana aanu leenahay war ilaahay ka yaaba cidda waxaan abaabulaysa ee ka dambaysa cidda doonta ha ahaateena in ilaahay ummadda dad ka qabto anintaas kaga bax Cabdiraxmaan waxaad sheegtay inaad tidhi cid baa doonaysay inay disho waayo ciddaasi walaal ciddaasi waa ciddii sii daysay idinkaa wareeyaala idinku baadha shirkii kulmiyaad oo dhex jooga iyadoo dadkii kuu dooday ee kuu dagaalamay inta badan oo miidiyuhuna ka mid ahaa ay ku hadleen mar qura waxaa lagu baraarugaaday oo dhex fadhiya oo dhex taagan shirkii kulmiye sidee lagu dilay adaaba shirkii qayb ka ahaaye walaal waxa weeyaan sida la ii dilay sheegaya waxa weeyaan shirka anigu umaan tagin inaan shir tago ee madaxweynaha qarankaad u tagaysaa baa laygu yidhi laakiin meesha waxaa ka jirtay khiyaamo kale iyo siyaabo kale walaal waxa weeyaan madaxweynuhu hadduu kugu yeedho muhiimaddu maaha halka aad ku aragtee waa inaad madaxweynahaaga ugu tagtaa halka uu kugu yeedhade waayo Cabdiraxmaan waxaan doonaa su'aal ku weydiiyo waxaa sheegtay in adigan lagu sii daayay Cabdiraxmaan Cabdimaalik Muuse Coldoonna la sii dayn la xukumay waxaad sharciga loo sinaado adigu waxaad aaminsantay sii dayntaana sharci darrahay ma anigu waxaan aaminsanahay walaal in sii daynteedu sharci ahayd waxaan aaminsanahay inaan qof dulmi galay aan ahaa sidaa dulmi lagu sameeyay sidaa uu Cabdimaalik u dhibanaa ayuuman aniguna u dhibanaa laakiin in la sii daayo iyo ilaa la soo xidho midna deemaan awoodin anigu sidee maxay tahay dilkii lagu qorsheeyay ka badbaadiyay dilka waa af Soomaaliga waa si khaldan baad u fasiratay dilkan ka hadlaya waa sumcad dil iyo dadka adigoo miidhana iyo ummadda kale la iga dilo